بسم الله الرحمن الرحيم. مسج كان وحو سعداني منك وحو كسعداني منك ولي سوديبه انا وحنا تا اديك سعداني نغو سوديب انت كل شيء تدوا. طيب ويلش الصوماليات وليبا nimanka xaaslayaasha ah dhageena si fiican u fura khayr Allah hadin siiyo message kan qaatan gabdhaad soo gursateen gurigii baad keenteen qaarkiin waxaa laga yaabaa inay safar ku maqan yihiin oo safar jiraan qaarkiin waxaa laga yaabaa in magaaladii ku mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsanaadaanba aniga daa'iman gabdhaan ku dhex jiraa hooyooyin hadday rabaan ha ahaadaan yani hadday la rabo xaas ahaadaan waan isla sheekaysanaa. طيب waa inaan soo gudbiyo wixii gabdhahaas ay ka sheeganayeen waxa markay bataan oo ay dad badan ka hadlaan waa arrin mujtamacii iyo bulshadii ka dhex jirto waa in laga hadlo waa in la xalliyo si fiican dhageynoo fura. gabadhan maalinka aad la sheekaysanaysiin waa jeclayd waxaad tusinaysay attention badan waxaad tusinaysay in aad jeceshahay waxaad tusinaysay caring badan waxaad tusinaysay waxyaalo badan. xaafadda markaa keentay adiga si fiican ay dhageyso adiga waxaa laga yaabaa inay optionno kale ku furan yihiin waxaa laga yaabaa in xataa ta ugu yar aan ka soo qabanay shukaansi uu ku furan yahay oo aad shukaansin kartid banaanka markaa soo baxday aynan dambi kugu ahayn. gabadhan aad soo guursatay oo guriga keentay waxaa mamnuuc ka ah in mataqaanaa nin ay la hadasho diiniyan waxaa mamnuuc ka ah nin inay wax walba ay dhexmaraan dhexdooda nin kale mamnuuc ka ah diiniyan. ilaahay ka cabsi baa reebaya waxyaalo badan baa reebaya xarig baa ku xiran. طيب lagama yaabo in ay leexleexato. طيب adigii mataqaanaa xalaasha u ahaana guri baad ku soo xirtay waad dhaqaajisay waxaad ku marmarsiyootay ama dhahdayba mashquul baa ahay. ma jiro qof mashquul ka ah qof uu jecel yahay 24 saacadood. magaaladii waxaa ka jira ama safar ku maqnuu ama jooge inaa ogaatid weeyaan nimanka beri hore jiray haddaa ku dhahdid waa li qabaa ama xaasaa ahay halkaasay sheekada ku xirnaan jirtay. hadda waxaa jira niman badan oo ilaahay subxaana watacaala waxaa oga baryaynaa hidaaya ilaahay inuu soo hanuuniyo baa ilaahay oga baryaynaa. gabadha hadday dhahda xataa waa li qabaa aanan ka leexanaynin oo qurux badan tahay kan baa tahay saan baa tahay gabadhi xaaskaagii waxaasaa lagu akhrinaa tii diin leh oo ilaahay subxaana watacaala ka cabsanaysa way isreebaysaa taana ilaahay ka cabsanaynin oo adigii qabay aad dayacday aada la hadlinin aada u sheekaynin aada ka wardhurin ninkaasee waxay u bilaabaysaa sheeko ah walaahi nolosha saasaa nagu haysataa walaahi cid ila hadasha ma lahan nimanka qaarkood halkaasay waxay kala soo dhexbaxayaan gabadhan waxay ka maqan way bilaabayaan marka inay attention siiyaan inay la hadlaan inay ayada xataa hadday iska yara jirto ay dhahdo waa lagu qabaa maskaxdeedii way u leexanaysaa ayadoo is ogeen laanna dumarka ilaahay wuxuu ku abuuraa caatifad. ilaahay ka baqa gabdho badan waxaa laga yaabaa inay mawduucaas ku baraarugsaneen ha u sheeganin nin bannaanka kaa jiro oo ninkaaga aan ahayn ha u sheeganin waxa dhibkaaga ah ha u sheeganin waa maalinkii halaagaaga ku bilaaban lahaa laanno ninkaas kaleeto wuxuu bilaabayaa inuu fiiriyo waxay kaa maqan uu bilaabo uu ku dhaho saa uma qalantid isaan ma tihid reerkaagana uu saa ku burburo maxaa la dhahaaye adiga iyo ninkaaga dhexdiina uu dhigo maaragtay uu ku tusiyo in mataqaanaa in nolol adag ah ku jirtid ama lagu daryeelaynin ama waxa hadday dhibkaa aan soo sheego uu ka haysto ninkaaga la hadal kala xali laakiin nin bannaanka joogo saaxiib ha ka dhiganin ha ka yeelanin walaa mutakhidaati akhdaan. qur-aanka waa looga hadlay waana lagu diiday maaragtay ficilkaas in saaxiib hoose aan nin ka dhigatid. طيب nimanka marka waxaan rabaa attentionkiina inaad soo jeedisiin ay iyo waxaas kulli looma baahna
attentionkeena soo jeediya dhageysta. xaaskaaga waqti gali, xaaskaaga attention sii, xaaskaaga jacaylka kaaga baahantay sii. banaankaas ha u fasaxin. haddaa maqan taho safar ku maqan tahay waa inaa kool garaysid, waa inaa la hadashid, waa in mataqaanaa nafteedaas abuust garaysid. waxay u baahan tahay oo emotion aasiisid. dumarka ilaahi subxaana watacaala saasuu ku abuuray. maahan intii gabdhaha la dayaco oo guryaha lagu soo xiro la dhaho biil baan bixinaynaa. biil kaliya kifaaya maahan. maskaxdaada fur. biil kaliya ma ahan wax ku filan reerkaas. gabdhaha islaameed faraha ka bixinina idinka dartiin. gabdhaha islaameed ha barina wax ayna maaragtay ay ka maarmi karaan, ha barina diintoodii ha ka fasahaadinina. waxaana gabdhaha soomaaliyeed islaamka ah ku baraarujinayaa in ilaahi subxaana watacaala ka baqaan. ninkaas hadduuna ku anfacaynin oo si kasta ah oo la hadasho uuna ku anfacaynin, yaa ukhtii dalba furitaan adoo daahir ah, adoo cafiifad ah ka dhaqaaji. laakiin kuma dhahayi adoo ninku qabo ninka lala sheekayso oo ku nafis. waan rajeynayaa insha allah tacaala in barnaamijkan iyo hadalkan uu si wanaagsan idinku soo gaaro. salaam calaykum.